ku soo dhawow Somali Online Academy haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan sar subscribe notification-kana furo siday kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee la soo geliyo channelka isla marka la soo dhigo waad mahadsantahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما أنت كسبتي grammar ونحو structure of a sentence وقابل اسمتك إريدا structure of a sentence وقابل اسمتك إريدا إريد حكومي subject يو حنري verb يو object مركا قابل اسمتك من قادم دونا لصعو 10 كو لما يصيرن هذا u baahnay barashada luqadda Ingiriisiga ma heli weydin chance aad ku tagto school ama fasal haddaba waxaan ku diyaarinay hal cusub oo ah barashada luqadda Ingiriisiga adiga oo jooga gurigaaga haddii aad danaynayso nagala soo xiriir WhatsApp numberka shaashada ku qoran. What is a verb? waa maxay ficil? verb ficilku is the action waa shaqada dhan baa u qabtay the subject sameeyuhu shaqadu qabtay weeyaan. verb ficilku is action waa shaqada weeyaan. shaqada dhan baa u qabtay weeyaan. shaqadii la qabtay weeyaan by the subject uu qabtay sameeyuhu. tusaale oo kale waa ciyaaritaanka shaqadan waxa qabtay sameeyuhuna muxuu ahaa cabdi buu ahaa. tusaale weeyaan. verb is action done by the subject. tusaale example عبدي بلاي فوتبول عبدي كود بعياريا مركا شقada la qabtay maxay weeyaan ciyaaritaan bay hadiya qabtay shaqada cabdi baa qabtay cabdi marka muxuu noqonayaa sameeyo noqonayaa shaqada la sameeyay maxay noqonaysaa wixii la sameeyay bay noqonaysaa Aisha is eating lunch Aisha qaday cunaysaa shaqada la qabtay maxay ahayd eating bay ahayd cunitaan bay ahayd we kill him isaga waynu dilnay we inagu kill him isaga waynu dilnay shaqada la qabtay maxay ahayd dilitaan bay ahayd yaanu dilnay yaa wax dilay inaga dilna oo subject baan noqonay inaga markaa hor sameeyay sorry what is an object waa maxay hadaba lagu sameeyay what is an object waa maxay lagu sameeygu an object lagu sameeygu is a receiver waa helaha is the receiver waa helaha of the action shaqada ka shaqada ku dhacda weeyaan is the receive an object lagu sameeyuhu is the receiver waa helaha ama kay ku dhacdo the action of the action shaqadu kay ku dhacdo waxa la yiraahdaa lagu sameeyay af Soomaalihan ama an object mafcuul baa la yiraahdaa. example tusaale abdi bareys football abdi kubad buu ciyaaraya wixii la ciyaaray ama waxa shaqadu ku dhacday maxay ahayd kubadda ayay ahayd waxay shaqadu ku dhacday. Aisha is eating Aisha waxbay cunay Aisha is eating lunch Aisha qada ayay cunaysaa wixii shaqadu ku dhacday waa maxay ama waxa lagu sameeyay waa maxay waa lunch qadadii weeyaan. we kill him isaga waynu dilnay we kill him isaga waynu dilnay yaa wax dilay inaga dilnay maxaynu dilnay maxaynu sameeynay dilitaan bay sameeyay dilitaanka marka wuxuu noqonayaa ficil kaynu dilnayna wuxuu noqonayaa lagu sameeyay oo kii wax lagu sameeyay weeyaan dilitaankii lagu sameeyay weeyaan waa isaga marka isaga ayaa noqonaya mafcuulku marka waxayaan football buu noqonayaa iyo lunch iyo him buu noqonayaa. halkaas uu noogu joogo cashirkeenu maanta till next lesson. باي باي وحنا فرينا فانتين انتم كل مدن 10 نحكي عن كتجا في امان الله وحفظه والسلام عليكم. Ardaiban ahayo Ardaiban ahayo Owahi wadankan ahayo